website walba marka la bilaabayo waxa laga bilaabaa waa meesha koobaad oo loogada iyo menu-yaha. Sida inta ka arkatid hadda waxaan haysanaa waxa waaye waa title ee nagu qorantay Katso iyo menu. So marka website-keena waxa aan ka bilaabayna waxa waaye waa title-ka iyo menu-yaha. Si aan u dhisno marka waxaan kaliya ka dhisi karnaa waxa waaye waa customize. Laakiin intaana customize tegin ayaan waxaan rabaa marka hore in aan soo abuurto pages aan menu-yaha soo abuurto. Okay, markii aan rabo inaan soo abuurto pages oo page home-ka ayaan rabaa inaan abuurto page baan tegayaa kadibna add new baan ku dhufanayaa. Add new markaan ku dhufto ayaan inta waxaan ku qoriyaa home kadib ayaan waxaan leeyahay publish saas hadda waxaan ugu abuuran waa home page keeni koobaad oo hadda haddaan refresh dhaho website-keena waxaad arkaysaa home-kii yani in xaggaas nagu soo qorantay home. menu-yaha saan u abuuranana waxaan tegaynaa appearance kadibna hoos ayaad u soconaysaa kadib waxaad arkaysaa meeshan hoose ay ku qorantay menus kadib meeshaas ku dhufo. marka xaggaa ku dhufatid wuxuu ku leeyahay menu name magac u bixi menu-yahaaga kadib anna waxaan leenahay main menu kadibna waxaan ku dhufanayaa primary menu kadib ayaan waxaan leeyahay create menu. markaan dhaho create menu ayaan waxaan hadda select garaysanayaa home-ka add baan leeyahay hadda kaliya home baa iigu jira meesha laakiin kuwa kale haddaan rabo inaan kusoo daro customize links baan tegayaa kadibna waxaan leeyahay waxaad iigu dartaa calaamadda hashkan ku qoraya xaggaas kadibna inta waxaan ku qorayaa service add baan leeyahay kadibna waxaan leeyahay waxaad iigu xijisaa about oo say u kala horeeyaan ayaan u kala qorayaa kadibna waxaan ku xijinayaa waxa waaye work midka u dambeeya haysanan wuxuu noqonayaa contact okay add to menu aan leeyahay kadib waxaad arkaysaa hadda home-kii iyo service about work iyo contact information loo soo geliyo kadib waxaan leeyahay marka save menu. markaan save menu dhaho hadda waxaan ku laabanayaa page-keenii ama website-keeni kadib refresh baan leeyahay wakaas xaggaas ayaana loo soo geliyay home service about work iyo contact. markaan hadda aan rabno inaan isla qurxino marka oo meeshaan rabno inaan yani hagaajino waxaan ka samayn karnaa waxa waaye waa customize inaan tagno. customize markaad wax ka hagaajinayso kaliya waxa customize waxa laga hagaajiyo waxa waaye waa menu-yaha meesha koowaad oo hore website-ka iyo footer-ka inta kale laakiin waxaan ku samayn doonaa page-ka Elementor. okay customize baan tegayaa customize markaan tago ayaan waxaan ku dhufanayaa header builder meesha ku qoran tahay kadib waa kana marka set title looga meesha ay ku qoran tahay ayaan ku dhufanayaa marka koobaad waayo loogada ama text hadda ana looga nuguma jirto waa text baa nugu jira so textigaan rabaa inaan hagaajiyo textiga marka fartaan ka yar waaweynaya far yar waaweyn baan ka dhigayaa. marka haddaan rabo inaan iska yareeyo xoogaana intaan tegayaa may loogada width waaye hadda anaga waxa noo qoran waxa waaye ya sax waaye looga hadda haddii hadda meeshan looga noogu jir lahayd oo looga width waaye laakiin anaga hadda looga nooguma jirto oo text baa noogu qoran. design baan tegayaa marka waa kana marka size baan tegayaa size marka ayaan waxaan ka dhigayaa 31 okay 31 aan ka dhigaba 31 sidoo kale waxaan rabaa inaan dhinacan kasoo dhaqaajiyana waan rabaa sababtoo ah loogadan haddaa fiiriso yani dhinacan darbiga leftiga aad uguma dhegana oo xoogaa ay kasoo dursan tahay. marka margin hadda ayaan kusoo durjinaynaa oo margin left ayaan leeyahay. haddii hadda fiiri laakiin aan dhaho aan rabo inaan left aan doorto haddaan dhaho 10 oo kale haddaan ku qoro dhammaan ayuu wada dooray sababtoo ah waxaa dooran waxa waaye links waxa yani calaamadda linkiga waxa waaye waa dhammaantood waaye markay calaamadda blue saaran tahay oo wada saaran yani dhammaantood baa laga wadaa. laakiin haddaan tigta ka qaado aan rabo inaan kaliya aan doorto leftiga waa inaan tigta ka qaadaa. haddii laakiin aan tigta ka qaadin waxay noqonaysaa inuu dhammaan wada dooro. marka tigtaan ka qaadayaa markaan tigta ka qaado oo colorka isbedelo ayaa waxaan leeyahay 50. marka content ayaa laga soo durkay dhinaca leftiga kuwa kale lama taaban top iyo right lama taaban ayaga.
sidoo kale colorkaan raba inaan ka bedelo waxaan leeyahay color waxaad ka dhigtaa color waxa waaye aan soo doortay so color waxaan leeyahay waxaad ka dhigtaa 2288 22 marka colorka saasana lagu bedelo colorkiina okay waxaan ku xijinaa waxa waaye marka inaan kuwaan hagaajino meeshaan aan tagayaa marka primary menu ay ku qorantaan waan dul tagayaa ku dhufanayaa kadib ayaan waxaan leeyahay marka design baan haddana kusoo dhufanayaa design markaan kusoo dhufto hoosaan u soconayaa waxaan rabaa inaan colorkooda bedelo colorka waxaan ka dhigayaa cagaar color cagaar ah 8822 okay colorka saas isku bedel sidoo kale markii la dul tago waxaan rabaa inuu colorka isbedelo hoverka marka waxaan leeyahay waxaad ka dhigtaa color guduud ah okay sidoo kale fartana waxaan rabaa inaan ka dhigo mid xoogaa wax yar weyn oo hadda aad buu yaryahay waxaan ka dhigayaa marka farta waan yareynayaa waxaan ka dhigayaa 17 okay 15 maaha 17 okay 17 ayuu kusoo baxayaa waxaan kaloo aan ku xijinayna waxaa waaye in meesha u dambeysa aan ku haysano buttonkan saan ugu soo darna marka fiiri markaan meeshaan markaan hadda dul tago meeshaan ama markaan yacni bahalkan hoverka markaan saa u dul tago calaamad plus soo boodayso micnaheedu waxa waaye wax ku dar waa calaamadda pluska markaan ayaan dul tagayaa kadib markaan calaamadda pluska dul tago aan ku dhufto wuxuu ii soo saarayaa account maarta inaan ku dartid button maarta inaan ku dartid html2 okay button baan leeyahay button markaan dhaho ayaan buttonka haddana dul tagayaa kadib waxaan leeyahay waxaad ka dhigtaa buttonka login magaca buttonka login ka dhig haddii buttonkan aan rabo link inuu geeyana hadda linkigaasaan ku qori karaa yani xaggaasaan linkiga gelin karaa kadib tusaale kale haddaan raba yani youtube-ka kaadsoo kale waxaan rabaa amaba meel kale inuu geeyo ama linkiga so haddii linkigaas aad rabto inuu meel kale ku geeyo kaliya waxaad dhihi kartaa linkiga xagga hay geeyo so intaad ku dari kartaa youtube hadduu rabo inuu kugu furno ku furi kartaa okay anaga ma rabno like taas design aan tegayaa kadib waxaan leeyahay color karta waxaa ka dhigtaa color cadaan ah color cadaan inta waa ka dooran karaa laakiin tan ku qorayaa color cadaan ah waxaan iska leeyahay ff color cadaan waaye backgroundkana waxaan leeyahay waxaad ka dhigtaa marka colorkii cagaarka waxaan leeyahay 228822 maha color aan xifdisanahay waxaan laakiin waa color aan meel ka soo qaatay okay sidoo kale marka inaan yareyno waaye yani hadda aad buu yar weyn yahay waa inaan yareyno waaye si aan u yareyno waxaan sameynayaa inaan baadinto hadda fiiri markii dhigto waxaan dhahaynaa haddii calaamadda daba saaran tahay yani linkiga hadduu saaran yahay bahashaas ay blue tahay waxay ka dhigantaa dhammaantood bay ka dhigantaa hadda waxaan rabaa kaliya inaan doorto top baan rabaa inaan doorto iyo bottom laakiin ma dooran karo haddaan dhaho top haddaan rabo tan haddaan ka dhigo dhammaan buu wada doorayaa sita marka taas aan u sameyn mar walba ka qaad tigtaas kadib waxaan leeyahay top kor waxaad ka dhigtaa 10 hoosna waxaad ka dhigtaa 10 okay marka hoos iyo 10 ayuu had dooriyay oo korna wuxuu ka geliyay 10 hoosna wuxuu ka geliyay 10 waxaan leeyahay sidoo kale right iyo left right waxaan leeyahay waxaad ka dhigtaa 20 left waxaan leeyahay waxaad ka dhigtaa 20 exactly saas ayuu noo tahay marka rightna waxaan ka geliyay yani 20 leftna 20 oo labadan isku mid aan ka dhigay labadan isku mid aan ka dhigay okay publish baan leeyahay kadib tigtaas aan ka qaadayaa marka website-kan aan ku laabanaa waa kaas saas hadda waxaan ugu diyaarsan menu ayaan qurxinay iyo buttonkii iyo title-kii kaasoo marka hadda waxa aan ku xijinayna waxa waaye waa inaan dhisno yani qaybtan hero section-ka ah si taas aan u sameyno hadda page-ka hadda fiiri home-ka nooma aha yani page-ka koobaad waxaan rabnaa home-ka inuu noo noqdo page-ka koobaad laakiin anaga nooma aho page koobaad page kala noo ah si taas aan u bedelana waxaan tegaynaa marka setting baan tegayaa kadib reading meesha ku qorantahay ku dhufo reading markaa ku dhufatid meeshan ay ku qorantahay marka static page select ayaan tigta saarayaa kadibna home page baan
select gareynaya kadibna waxaan leeyahay home iyo door oo page koobaad waxay ka dhigan tahay waxaan dhahay hadda yacni page koobaad waxay iga dhigtaa home page kadib waxaan leeyahay save changes haddii hadda aan ku laabto aan refresh dhaho homeka ayaa waxaa laga dhigay page koobaad waxaan ku xijinaa marka inaan hagaajino qaybtan hero sectionka marka qaybta hero sectionkana saan u hagaajino waxaan ku hagaajinaynaa waxa waaye waa Elementor